السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحجر صاحبي المقال عن فيسبوك جاي صديق السنة كور مقال كاسي وحكى لي سيد الله صو عشتو فيسبوك اللي جاب صديق مقال كاسي وحا لايك ساري dad gaari 4,000 oo qof waxaana comment ka bixiyay 200 muuqaalkaasi saaxiibayaal waxaan kaga hadlay sida u soo cishan karta Facebook laga jabsaday laakiin waxaan ogaaday baahida loo qabo Facebook inta laga jabsan ka horba inaad ka taxadari karto ama waxyaabaha ay muhiim ka tahay ama sitinada aad muhiim ka tahay inaad iska ogaatid inta Facebook laga jabsan maxay yeelay mar hadii wixii laga jabsado soo celinteedu kuwa adkaanaysa laakiin before taxadar baa haboon marka insha Allah maanta waxaan kugu tusayaa saaxiibayaal muuqaalkeena sidii aad وأتكيسن لهيد أمانك فيسبوك جاga أنا كوشي ولي استبدا أي مهم تي إن تقادد سي معناها فيسبوك جاga أنا جاga جبسن مسي أمانك يسوي لالساتو أنت وحي كورة سيد عادي صاحب هديات كحصو تاي channel كنا فضلا كصبير أو مقال كان لايك جري channel كان سبسكرايب سي أدلو سعة المقالة مستقبلك أي نصودي دونه وأن هو يعني فائدة قاس أكوليين هديات كم هذا أصحاب توري لي جوكتي أديات بنكامت إنها السلام منكوس على صاحب السود وهذا إن شاء الله مركب مقال كان ينتصر بالله مركب صاحب الهدية فيسبوك سان أصو قالو Facebook marka waa meelaha ugu muhiimsan ee asxaabta iyo ehelada iyo dadka qaar aan kula xiriirno marka waa muhiim xogtaada meeshan kugu jirto inaad ilaasho si privacy aad u ilaaliso dadka kula xiriira iyo adiga bataada ama sharaftaada oo ilaalisato si aad raadid horta hadii ay marka koobaad fadlan ku soo bir ama iga soo follow gray magaca halka ku qoran ee Cabdi Nuuxsay waa Facebook-giga dhabtaan isticmaalo sideed kun oo qof ayaa ku xiran si aad ku garan kartaa marka hadii aad u baahan wax su'aalo privacy inay weydiisan halkaas igala soo xiriir saaxiibayaal markaas aad yimaado marka qaybtan setting-ka halkaas ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxa ku sii dhufanaysaa setting hadii aad marka Android isticmaalayso iyo hadii aad iPhone isticmaalayso setting-kan waa isku mid waa isku setting marka ha ka walwal marka meesha waxaan rabaa waxyaabo fara badan oo inay ka qaldiin laga yaabo ama in macnaha laga hadaba lagu soo socdo inaad ka ogaato marka saa soo socotid marka account center baad ku dhufanaysaa account center marka ku dhufatay saaxiibayaal meesha waxaan ku dhufanaysaa meeshaas ku qoran tahay password and security kadib horta inta aadan waxyaabo kala sameeyninba meeshan waxaad dhag siinaysaa where you logged in halkeed Facebook-ga ka soo gashay marka meeshan waxa u jeedid Instagram-kayga iyo waxa ku jira maxaa la yiraahdaa magacayga Cabdi Nuuxsay oo kan Facebook hadaan isticmaalayo halkan marka waa inay macnaha laba waxaad adiga isticmaalaysa kaliya aad meeshan ku aragto hadii aad meeshan aragto isticmaalkaaga wax ka baxsan tusaale Facebook-gaaga oo France laga soo galay ama Ethiopia laga soo galay ama Soomaaliya laga soo galay ka baxsan meesha adiga joogtid waxaad meeshan ku qasban tahay inaad remove ka dhahay maxaa yeelay qof ayaa Facebook-gaaga ku isticmaalaya marka where you logged in meeshan ay ku qoran tahay inaad iska jeegarayso aad ogaato meeshan inaad adiga kaliya ku tahay hadii ay dadka kugu bataan oo wax ka baxsan adiga aad meeshan ku aragto waa halis markaas aad u jeed meeshan aniga hadda inta badan Addis Ababa ayaa laga soo galaa telefonkeyga ama jigjigo waa labada meel u badanahay labada meel wax ka baxsan hadii aan arko it means aniga iska malihi oo qof ayaa Facebook igula jira marka why you logged in meesha ku qoran tahay inaad xoog saarto oo aad ogaatid waa ku khasbantay waxa jira marka waxa jira saaxiibayaal wax loo yaqaan login alert ka markaan ku dhufatid hadda inaan ku tuso marraba laakiin markaad ku dhufatid waxaad arkaysaa email iyo notification marka si aad marka horeba marka lagu soo socdo ogaatid emailka iyo notification-ka labada waa inaad tig saartaa marka gudaha gashid ayaad arki doontaa oo hadaan ku tuso aniga privacy-giga aniga ayaan ka taxadariya marka meeshaas login alert ku qoran tahay qaasatan Facebook-ga oo ku dhufo email iyo notification ba ku soo bixi doona labadaasna تكسيسا أو قصب لودا إن هذا وجات وحكى لو قصب صاحبي المشهد سكو قرنت recent إيميل لذا كوجرا ماشي أنا كو قرنت recent إيميل هدي عن كله فتانيجا recent إيميل كاسيتا أون أنيجا هين أما إيميل كان هذا ماشي كو عرفتنا كبحي محيلي إيميل كاس أدوكم مقصي ماشي صاحبي هذا عن كله فتو security check up كو قرنت هاي select account to start وكلها يا مرك account لودا عن دورة أما إنستغرام كاجا دورة أما فيسبوك كاجا دورة سياد account تيجي أوبس ماشي تسأل هذا فيسبوك بهانتي Facebook-ga ku dhufo kadib security check up ku sinay wuxuu halkaas kaaga sheegayaa Facebook-ga inuu daciif yahay inuu adag yahay in laga jabsan karo iyo in laga jabsan karo hadda inaan ku tuso mar rabo maxaa yeelay wali privacy-ga ayaan ka taxadaray laakiin korkaas aan ka tusaya meeshaas marka ay ku qoran tahay security check up ay ku qoran tahay inaad fiiriso waa qasab oo adiga ay muhiim ku tahay saaxiibayaal markaad ka soo baxday meesha marka saaxiibayaal labadan hadda aniga ugu hooseeya security alert iyo security storage meesha ku qoran tahay labadaas inay sidaas ku ahaadaan waa qasab sidoo kale security check up kaas inaad iska jeegarayso waa qasab waxa ku soo haray midda ugu weyn ee saaxiibayaal inaad isticmaasho loo baahan yahay waa meeshaas ay ku qoran tahay two factor authentication hadii meeshaasi aysan on ku ahayn waxa way Facebook-gaaga halis buu ku jira
halis buu ku jira meeshaas ayaad ku dhufanaysaa kadib passwordkaaga ayaad dib u gelinaysaa passwordkaaga marka dib u geliso wuxuu ku weydiinayaa inaad ka dhigan doonto app ama wuxuu ku weydiinayaa inaad ka dhigan doonto message adiga marka kee aad rabto ka diro marka aniga hadda tusaale waxa igu xiran waxa loo yaqaan authenticator app application ka ba igu xiran ay ku qoran tahay authenticator app application ka marka haga geliyo ani qof kasto ma gaad tusaale inuu Facebook-gayga jibiyo maxaa yeelay waxaan ku baxsan doonaa coded oo isiinaya authenticator app kaas marka waa muhiim inaad la socoto ama aad ka taxadarto in meeshaasi ay on ku tahay hadii ay meeshaas on ku ahayn waa risk marka password iyo security check up ka guud waxa way Facebook-gaaga inaad adiga ilaalisatid adiga ayay muhiim ku tahay saaxiibayaal marka saaxiibayaal si guud inaad ugu taxadarto Facebook-gaaga adiga ayay muhiim ku tahay markasta oo Facebook-gaaga uu adag yahay waa markasta oo waxa way Facebook-gaaga ay ilaalsan karto marka qaar waxa jira marka hadii aad lacag haysato ama aad ka mid tahay dadka macnaha bil kasta iska bixin kara waxyaabaha la bixiyo oo verification-ada lagu qaato account-kaaga verified account-kaaga verified iska dhig account-kaaga inaad verified gareysaa wuxuu ka saacidayaa in waxa waaye Facebook-ga laftirkiisa uu ka taxadiro in account-kaaga la jabsado haduu account-kaaga oo calaamada blue tick ta saaran yahay ana hadda ima saarno oo because aniga nafsad ahaan baan ugu taxadariyaa Facebook-gayga kumalihi ma la jabsan karo laakiin inta badan aad baan ugu taxadaraa marka Cabdi Nuux Xuseen halkaas hadda ku qoranta ani verified ima saarno laakiin hadii account-kaaga verification yahay oo aad lacag ku bixiso aad Facebook-ga lacag siiso waxa waaye account-kaaga in laga jabsado aad bay u adag tahay marka saaxiibayaal waxa ugu badan in hadda amaanta ka hadlayno waa security marka security-gan inaad iska ilaaliso adiga ayay ku anfacaysaa marka saaxiibayaal aad iyo aad baad u mahadsantiin kulay inta aan rabo inaan kula wadaago maanta waa intaas hadii ay jiraan caqabada iyo waxyaabo gooni ah Facebook-ga ka haysto oo xalin la adeyn insha Allah igala soo xiriir aad iyo aad u mahadsantahay waa inuu muuqaalka xiga assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh